wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo wafdi hogaaminaya oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha shaqada iyo bulshada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxay maanta gobolka Awdal waxaana soo dhaweynad u ballaaran sameeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal kuwaasi oo ay kaga hortageen degmada Dila ee gobolka Awdal iyo halkaasi soo gaaray ayaa waxa soo dhaweeyay marti sharaf aad u tiro badan wasiir Xirsi ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid dhaqameedka degmada Dila oo iyagu iska xal wareysteen harsanayd ee 6 kiiloomitir wada socotaan waana idin ku salaamayna assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada ay SNM dumisay ee gacanteedu ku dhacday waxa weeye Dila meel kale ay wax ka dumisay guryaha ay bixinayaan hay'aduhu ee adisastaan idinku uga wakiilka tihiin cadka dheeraadka in Dila la siyaabaan diyaar idin kana wasiir Xirsi oo u jawaabayay madax dhaqameedka degmada Dila balanqaadna u sameeyayna waxa uu yiri haday tahay socodkaygu sidii la sheegay waxaan u soconay wax qabada waxaan u soconay wadadii inaanu dhameystiro intii horena furo 6 kiiloomitir hore maanta hore madaxweynuhu dhagax dhigay 5 kiiloomitir ka hadhayna inaanu dhagax dhigno lama xusin laakiin anagu ninkii saxaxay dareebaan ha waraaqada u diray ruqi iyo dalatii isku xidhaysay dawladda samaysay ruqi iyo dalatii isku xidhaysay ahayd rafka access roadka ahayd silcada ahayd annaga soo diray waana la dhameeyo si waxan ba wax looga qabtay waana ognahay in warbixintiina lagu siiyay in lagu liibaanayo wadadii furantay oo lagu liibaanay biyaha haday tahay hay'adda ifad iyo qorshe la wada biyaha insha Allah taala la wado dadaalkii waa la sameeyay way bala qaadeen inay sameynayaan biyaha meesha laga leeyahay waa laga qoday inay ku filaan doonto war lama hayo laakiin gacanta lagu hayaa sidii loo sameyn lahaa haddaba markii uu wasiirku ka soo kacay timada Dila ee uu soo kacay magaalada Boorama ayaa waxa uu halkaasi xarig ka jaray jid ay xukuumadda Soomaaliland dhistay wasiirka ayaa waxa uu dhagax dhigay wada kale oo iyadoo ay xukuumaddu ballan qaaday 250 kiiloomitir kuwaas oo ay xukuumaddu ay dhagax dhigtay sidoo kale wasiirku waxa uu dhagax dhigay jidka isku xidha xaafadda Sheekh Cismaan iyo magaalada Boorama oo ay halkaasi dhibaato fara badan ay ka jirto waqtiyada roobku uu isku socodku halkaasi kala go'o noqdo ayaa waxa kale oo uu booqday ugaaska beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Roobla ugaas Toodi oo uu gurigiisa u tagay madaxweynihii wasiirkii shaqada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada ku xogeenkii information ka zinihii madaxtooyada oo maanta booqasho kuugu yimi gurigaagii ayaan kugu soo dhaweynaynaa ugaas aad ku salaamayna oo kugu sharfayna inaan kugu soo booqano gurigaaga waxaan ku rajaynayaa insha Allah taala guul iyo caafimaad insha Allah taala salaanta saan kugu nimi wax kale oo runtii statement official aan imka halkan ka sheegay ma jirto aan ahayn inaan ku soo dhaweyno ku nimaadno madaxweynaha Soomaaliya sidii dawladda madaxweynaha Axmed Xasan Xuseen iyo hogaaminayay anaga iyo intii dawladda ka socotay xukuumad ahaan halka mareysay saasaan ku soo booqanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bareynaa caafimaad wa Axmed Diiriye Ciiltire shabakada wararka ee Maandeeq magaalada Boorama